madaxweynaha maanta tusayay markaan halboor ka soo socono deegaan dhulkaan bannaan oo magaalada laga soo gelayo taangiyo burbursan oo qaar ciidamada Soomaalida laga burburiyay iyo kuwa ciidamada Itoobiya laga burburiyay ayaa meesha ooli jiro muddo dheer laga yiri yani burburkaasi dhibaatadii dadka gaarsiiyay waa loo garanayaa dadka jooga Soomaaliya iyo Itoobiya waxay dhiseen ama lahaadeen ciidamada Afrikaanka ee madow kuwa ugu xoog badan yaa labadan dalba ka jiray khaasatan weliba Soomaaliya xilli salaasi booqashiis ugu dambeysay Ameerika uu ku tagay oo hadda de waxaan WikiLeaks kan waxaan ku soo baxeen discussion-ka asiga dawladda Mareykanka dhacdanaad ka dareemay khatarta Itoobiya ee Soomaaliya ka arkaysa markaas iyo midowga Sovieti ee Soomaaliya joogay iyo Mareykanka waxaan soo marnay waayo dawladaha Itoobiya iyo Soomaaliya budgetka dawladdu ay leedahay 70% ciidamada lagu bixiyo military dhismihiisa qalabayntiisa iyo xoojintiisa lagu bixiyo waxaan soo marnay waayo dawladaha Itoobiya iyo Soomaaliya budgetka dawladdu ay leedahay 70% ciidamada lagu bixiyo military dhismihiisa qalabayntiisa iyo xoojintiisa lagu bixiyo inta kale dawladda inteeda kale oo waliba adeega bulshada ee caafimaadka iyo waxbarashada iyo biyaha nadiifka iyo 2% 3% budgetka dawladda lagu bixiyo marka taasi waxay keentay de marka dab sida loo socdo burburkii haatan alxamdulillah waa ka nimid burburkiina anagu waagaan yaryareen iskuulka noo dhigayay ee maxaan ku yiraahdaa colaadaas hadda taariikhdan ka sheekeynayna iskuulaadka lagu baranayay waxay ahayd anagoo yaryaro ma dadka Soomaalida iyo Itoobiyaanka intaba waxa loo dhigi jiray dal Soomaaliya ay leedahay iyo dad Soomaaliyeed oo gumaysi ku jira oo in la xareeyo u baahan ayaa jiray dabcan dhinacan cadaawadaas oo kala ka jirtay dadkii marka nolol adag deegaanka dadka ku nool nolol adag ku noolaayeen dawladda Itoobiya waxba kuma lahayn intii Soomaaliya ma balahayn xuduudaheedii banaanka jireen duruufahaas yani yaa jiray maanta laakiin wixii cagsigii isbedelka dhinaca kale aaday mar uu ka hadlayay madaxweyne waxaan la wada soconaa dhammaanteen 1884 waxaa dhacay shirkii Baarliin wuxuuna ahaa kii loogu talagalay in lagu qaybsado Afrika oo Soomaaliya qayb ka ah waxaa dhacay 1887 miilaadiga markuu ixtilaalkii lagu qabsaday magaalada Herar dawladdii uu soo dhisay Imaam Axmed Guri ugu dambeyntii laga qabsaday sida oo kale 1893 miilaadiga waxaan la soconnaa in la qabsaday laga soo bilaabay Herar ilaa qabri bayax laga soo gaaro jijiga duleedkeeda ku taala ilaa soonkankada loo yaqaan fiiq lagu qabsaday gobolka loo yaqaan fiiq lagu qabsaday inta isku fadhigeeda 1948 waxaa la qabsaday dhulka intiisa badan ayaa la qabsaday waa gobolkan aynu naqaano Soomaali galbeed intiisa u badan baa la qabsaday waxaan waqtigaas ku beegnayd markay Yahuuda Ingiriisku u gacan gelinayay wadankii lagu yaqaanay Falastiin muslimka ahaa iyo tan isku waqti ahayd laga 1955 waxaa gacanta lagu dhigay gobolka deegaanka lagu yaqaan Hawd oo dhaqo dhinaca koonfurta waqooyi dhaca dhulka weyn ee waqooyiga Hargeysa koonfurteeda dhaca dhulka ayaa xabashi lagu wareejiyay kaasi waxa weeye ixtiraalkeennii wadankeenii Soomaali galbeed loo oran jiray shacabkeenii muslimka ah ee adiga ah lagu ixtilaalay waxaasi waa wixii waqtiga hore dhacay dadka waqtiga la qabsaday taariikhda 1955 waa 5 sano ka hor xorriyo ku sheegii Soomaaliya beenta ahaa la yaabaneen awaaniintu ay la yaabaneen Soomaaliya gaalka kaadiriya daarta kii galay waxba isma doorshaan ku weylahaayeen waqtigaas horta 5 sano ay ka sii horeysay ixtiraalka wadankeena gacanta lagu dhigay dadkii waqtiga la qabsaday maanta sidee loola dhaqmaa su'aashu waxa weeye war maalinta shacabkeenii Soomaaliyeed gacanta lagu dhigay Soomaali galbeed maanta sidee gaal ula dhaqantaa wax maanta ka dhacay weeyaan wadanka waxaa ka socday dil bilaa maxkamad ah waa qodobka koobaad wadanka waxaa ka socda xoolaha oo la wareego ayadoo loogu marmarsoonayo xoolahani waa kootarabaan maxay ka dhigantay qof kasta oo dawladda aan ka haysanin warqad canshuurta lagu canshuuray xoolo awoogaar u goyn karin ay tahay warqadda canshuurta siinteeda keenaysa qofka warqadda haysanin kama soo qaadi kara Hargeysa oo u muuqata dhagax buur ma keeni karo qadidaar ma keeni karo intuu Muqdisho ka qaado godeeda loo muuqato qallaasho ma gaarsiin karayo intuu ka qaado wajaale jigjiga ma geyn karo boor intuu ka soo qaado ma geyn karayo meesha loo magacaabay Dirdhabo hadduu geeyana waa kootarabaan bananaysa saan guriga wareegaya
waxaana la wareegaa guryaha maguurtada ayaana la wareegaa mumtalikaadka oo dhan baa lagula wareegaa waxaana loogu marmarsoodaa wuxuu qofkani taageersan yahay waa shifti baa la yidhahdaa shifti maxaa ka dhigtay macnaha waa mucaarad dadka waxaa la geliyaa jeelal mu'abad ah oo madaxaha ku furta ah iyada oo loo aabayeelin maxkamadda aan la soo marinin dadka barakicin ballaaran ayaa lagu hayaa siiba deegaanka muslimka ee soomaaliyeed ee asalka ah booskoodiina waxaa la dejiyaa kiristaan tusaalena waxaa idinku filan hadda meesha noo muuqatay ee goday abiyo xidheenka weyn ee loogu talagalay webigan shabeelle in soomaaliyaba laga taray gebigeeda qorshahaas wata ilaahay baa dhaafiyey webigan soomaaliya u imanaya ee shabeelle lagu magacaabay gebigiisaba in la jaray ku talagashay goday baana laga gooyey dhul intaasoo 20 kilomitir ayaa isku weer laga dhigay war biyo xidheen ah laga dhigay wartaa biyaha ku dhacaya beeraha laga furtay dhammaan dadka la dejinaya waa kiristaan reer godayna waxaad moodaa dad bishiya malaria hayso halkaas ayay fadhiyaan ayagoo indhaha ka dhowraya waxaana leeyihin idinku eerimatidina ka leexdaya leeyihin mana la taaban karo ayagaan taaban karin jawraha hubaysan baan taaban karin waxaa wadanka ka socda dagaal wadareed aad u ballaaran waxaana loogu marmarsoodaa qofkani wuxuu taageersan yahay jawadaha dhaqdhaqaaqa gobolka ka wada ma ee aab buu u yahay walaal buu leeyahay adeer buu u yahay ما حبين حتى ولا ولا يقف حبين كأ أي ولا وياه أنت صار له مرة بصلاة الجماعة